maalin dhaweyd laba nin oo Soomaali oo la leeyahay waa professoro magacyadooda taqriiban waan garanayaa iyo wajigooda laakiin aan sheego muhiim ah meel bay wada fadhiyaan social media la soo gali mid baa wuxuu leeyahay diin ma ku dhaqmaynaa anigu I will say no diin ma ku dhaqmaynaa anigu I will say no haddii la isweydiiyo buu shariicada islaamka ma ku dhaqanaa haddaan Soomaalina wuxuu yidhi I will say no I will say no waa professor Soomaali ah oo Mareykan wax soo baray waa shariicada ma ku dhaqanaa Soomaaliya ma ku dhaqnaa haddii la yiraahdo anigu waxaan dhihi buu maya midkii ka dambeeyaba dibi dhalo ka dar waa midkii la fadhiyay wuxuu yiri very sensitive question diinta ku dhaqanaa macnaha mugta waxaan ku raacsanahay aniga saaxiibkay marka diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo anigu horta saaxiibkay waan ku waafaqsanahay buu hadalkiisaas sababtana wuxuu yiri tanaaba ka sii daran wuxuu yiri naga aqal badan Mareykan ayaa kala sooceen diinta iyo state there's a reason ay kala sooceen it's not joke ma naga aqal badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga waay aragsan yihiin xireen baasha hala kala sooco Mareykan baa kala saaray buu yiri diinta iyo nolosha Mareykanna waa naga aqoon badan yihiin obvious saas u hadlaya waa professor waa naga aqoon badan waa naga waay aragsan waa naga xoog badan maadaama Mareykan uu diintii kala saaray iyo baashi asaga inuu kaga dayanayna saas daradeed saaxiibkay waan ku waafaqsanahay waxaan sadhihi lahaa buu yiri laakiin waxaan qabaa constitutionka aan qaadanayn inuusan diinta ku xadgudbin kelimadaasi waa kelimo shaydaan waay caamada lagu siraa shariicada waxaan ka hor imaanaynin aynu aan dib u geysanin kuwa professoriintii ay gaala soo tababartay laga soo shaqeeyay ee 40 sano la soo tababaraya Soomaalida aha warkoodu kaas waa maxaa la doonayaa ummadani inay sanka uga tollaato cadaan iyo reer galbeed gumaysi aan danaheeda ka shaqeyneen wixii ay ku xoogaysan lahaydna laga ilaaliyo